maanta ayaa la filayaa in la soo gabagabeeyo kiiska eedeysane Said Cali Macalin Daawud oo ku eedeysan inuu gubay xaaskiisa. Dhacdadan ayaa dhacday horaantii sanadkan, inkastoo maxkamadda gobolka Banaadir ee eedeysanaha ku xukuntay dil toogasho ah oo qisaastii Luul Cabdicaziz. Qareenka eedeysanaha iyo ehelkiisaba iyo asagaba racfaan ay soo qaateen ayay ku yimaadeen maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir. saddex kal fadhi hore oo lagu dhageystay eedeysanaha iyo dacwad oogayaasha ayaana maanta la filayaa in lagu dhawaaqo xukunka rasmiga ah ee eedeysane Said Cali Macalin Daawud. ehelada Luul Cabdicaziz iyo dacwad oogayaashaba waxay maxkamadda ka hor sheegeen inaysan ku qancinin wax aan ahayn dil toogasho, halka ehelada Said Cali Macalin Daawud ay hore u sheegeen inaysan ku qanacsanin habka wax u socdaan, balse ay rajeynayaan in wiilkooda uu helo cadaalad isla markaana aan lagu heenin wax cadeymo rasmi ah oo cadeynaya inuu gubay xaaskiisa Luul Cabdicaziz. maxkamadda gobolka Banaadir ayaa hore eedeysanaha ugu xukuntay dil toogasho qisaastii Luul Cabdicaziz. maanta ayaa la filayaa in la soo gabagabeeyo kiiska eedeysane Said Cali Macalin Daawud, maadaama maxkamadda hore saddex kal fadhi hore u soo yeelatay, midna lagu dhageystay eedeysanaha, mid kalena dacwad oogayaasha lagu dhageystay. qareenka Said Cali Macalin Daawud Cali Xaaji ayaa sheegay in Soomaalida iyo ehelka Luul Cabdicaziz ay dan ugu jirto inay qaataan diyo, isla markaasna aanan wax cadeymaha lagu heenin eedeysanaha inuu gubay xaaskiisa. haddaba maanta ayaa la filayaa in la gabagabeeyo kiiska maxkamadda. haddaba muxuu noqon doonaa xukunka eedeysane Said Cali Macalin Daawud?